wariyaaku abuuray hadda ka hor baan halkan ka baxnay doon baan fuulay min taskhiirillahi iyadana ka mid ah oo 12 dabaq ah waxay ka baxdaa Sweden waad wada fuusheen meelahan markaad joogtaan kuwa xaggaas markaan u sheegay la yaabaan 12 dabaq doon ah markaan meelahaas kala joog idinka halkan waa wada fuusheen oo gudaha ku wadata waxa soo baabuur iyo tareenkaaba fuulayaba waa min taskhiirillahi ta'ala doontii baan fuulay koox baan ahayn jamaaco aho kolkaasaanu niri bal meeshan aan ku jawlayno ileen jawlada waa lidacwa insha Allah ta'ala ileen waxa soo dhowr kun oo gaala jooga hadda iska tago ay qarqoonto fi naar jahannam soo maaha rasuul kale looma soo dirin balaan fikirna maxay yeela balaan isqa qaybino la'alla wa asa waa isqa qaybinay aniga mid kale oo iga cimaamad weyn baa israacnay dabaqa hoosaan tagnay soo noqodkii markaan soo noqonayn laba Sweden oo dhalinyaro waa kuwan waana salaamin iyagaabana soo doontayba waa muslimiyatiin ha muslimiin baan nahay waxaan doonaynaa inaad islaamka noo sharaxdaan هيا تفضلوا وابسان وسعودني bahalkii baan soo fuulay bahalka wiishka la fuulay 12 dabaqoy kor baan soo fuulay kor maxaa ku sii diyaarsan jamaacatul istiqbaal jamaaca la ilaaho oo lagu sii talagalay istiqbaalko iyagu buskud iyo keeg iyo alaabtii sii dhigay qaar nala joogay hadaba ay muuqdaan halkan maalintaas habeenkaas qoladii waa yimaadeen meeshay fariisteen buskudkii iyo wixii baa horta marka horeba iyo alaabtii baa la siiyay waxay la noqotay wax qariib ah لأنه وحي إسويديان وحن فريميا بلا فلوس ميا هوا بلا فلوس بالير وحبل لكن كمرة وحلقة يا با وحدهن أول مرة وتاريخ ذو ذا هو كلا أي شيء وحي وحلقة يا با مركي يقول الرئيسي ونلوش ذا أي وح بلا شيء كعنان إني ما يكون عبان إسقاط المهم مركي سو دوين تودي أي دماتي أيها وحل يري يقولون كيف محيا الله هذا وحل أذوق الله هذا لأننا وكاتر جمين وحل يري هي وحن يري محاتكم فليسان إسلامك بل ولا لا يلكفير صدا waxay dhahay waxaan ku noolahay horta wax ma rumaysnin bila diin bana kristaanka mid ba hadlay labadooda wuxuu yiri kristaanka markii aanu yarayn waan dhiganay madaarista iskoolaadka laakiin nama qancinin intii ka dambeysay bila diin banahay saas awgeed waxaan dareemaynaa bal fiiro waxa hadda aad u garanay weeyada waxaan dareemaynaa buu yiri faraaq waxba naga maqan bal waxaan rabnaa inaad noo sharaxdaan inaan markaas qaadano waa ka fikirayna waxaan saddex su'aal anta adigu makhluuq baa tahay faman khaliquka yaa ku abuuray makhluuq baa tahayo waa lagu abuuray lima khuliqta maxaa lagu abuuray ta su'aasha saddexaad makhluuq baa taho bidaayad leedahay oo meel baad ka bilaabatay fama hiya nihayatuk bidaayadaadu waa wada naqaan meeshan ka wada bilowna waa naqaana nihayadaada maxay tahay xageed ku dhamaan abaar buu fikiray kii labadooda hadlayay wuxuu yiri saddexda su'aal jawaabtooda waa bataan la aawdeeyay qabsaan maanta ilaahay kuugu bishaareeyay markaasaan halka uga bilaabay khaliquka allah azza wa jalla ilaahay baa ku abuuray samaawaadka iyo cirku abuuray umurahaas uga soo sheegay halka markii aan u waday in uga sheekeeyay koonkan inayna iska ahaan karin diqada iyo ajaa'ibtaas u sameeysan bila khaliq wuxuu yiri taas waan ku yar qancaya laakiin waan ka yar cadaysnahay buu xoogay cara iga yar jirto khaliqa waa yar rumaysanahay haddana hadalkaagi wax badan baan ka fahmay waanu yar cadaysnahay maxaad ugu cadaysantay wuxuu yiri waxaan ku dhiganay kristaanka markaan iskoolaadka dhiganayn in qowm nuux markii la halaagay oo ilaahay carooday oo halaagay dadkii nuux khilaafay intii nuux iyo intii la socotay kaliya ay badbaaday oo uu arkay inta yar ee soo hadhay ilaahay markuu arkay inta yar ee soo hadhay waa soo hadlay inuu ilaahay uu ka nadaamoodo ka shaleeyay yiri waa caraa qaaday oo dadkii waan iska laay soo ma aragtay dib dambe ugu noqon maayo markaas uu ballan qaaday dib dambe inuunan dadka u halaagin taas uu leeyahay marka maanta kuwa axmaqiin oo waxba kala garanay ayaa wax oo cilmi uu baray isagu saas uu leeyahay hadda ayaa waxay sameeyeen buu ku leeyahay bahashan qumbula durriya bambaatoomika sameeynaya oo xabad kaliya ku filan inay koonkan oo dhan ay halaagto marka muxuu kuwan u deynay hadduu ballan qaaday inuu san dadka halaag waxaan idhi الله رب العالمين جل جلاله من ندامود هذا قرحذا إمس سنة سميسني لما هو قبول ملايين السنين ولي قام ما قشيبان المال مال بك حماته ولا جنيه
siyaanay u baahatay waxaan siyaano leeyahay doontan in yar bay ku bilaabatay loox yar bay ahayd waa la weynay ilaa intan ay la ekaatay weli waa la sii wadaa iyadoo haddana samaysan maalin kasta meel bay ka diistaa waa la hagaajiyaa weli ma maqashay fi taariikh xataa qorraxda meel u baahatay in laga soo sameeyo maya maana maqal buu yidhi cirka weligii meel buu ka duisay maya dhulkana sidoo kale waxaan idhi haddaba allaahu rabbulcaalamiina wuxuu sameeyey siduu u sameeyo waayo ma bedel maayo qorraxdan maalintuu samaynayay wakhti kastayna u habboon tahay ilaa yowmi alqiyaama ayuu ugu talagalay waana sidii weligeed ma bedelmi mayso kadalika sidoo kale aqwaashiisii afcaashiisana waa la mid waxaa nadaamoodo oo shallaytadu ay ka suurtowdaa midaan wax kala garanayninoo maanta wax sax la noqdaan berrina ay khalad la noqdaan laakina allah tacaala wax kasta waa og yahay sidaas awgeed tan laguu sheegay khuraafaad weeye been weeye waxba kama jiraan sidaa unbuuna yeeli eber buu ka dhigaya wax alla waxay khilaafa amarkiisa subxaanahu wa tacaala ima caajilan aw aajilan waan iska wadnay oo waxaan kala hadlay haddana qaybtii labaad maxaa lagu abuuray lima khuliqt ciyaar laguma abuurin cabad laguma abuurin doqonnimo weeye inaad tiraa cuntaan cunaya waan seexanaya meelahaas awoodda ilaahay markaan uga hadlayey qudrada ilaahay aan ka hadlayey waxyaalaha aan weydiiyey ee idinkana laga yaabo marar badan inaa iga maqasheen waxaa ka mid a waxaan idhi beriiska ma cuntaa haa buu yidhi waan cunaa beriiska waxaan ku weydiinayaa bal hadda ka fiirsada waxaan idhi dawladda adduunka ugu weyntee weeye maraykan buu yidhi tan maraykan iyo tiinna iyo kulli haddii laysku wada daro waxay farsamo iyo tiknoloji iyo horumar gaadheenna laysku soo wada daro hal xabad oo beriisa ma samayn karaa kama fikirin markiiba wuxuu yidhi maya ma samayn karaa yaa sameeyey garbuhu saa yidhi de garbaha saa ha dhihin baan allaahu rabbulcaalamiinaa sameeyey kulligood tiknoloji iyo taqadum iyo horumar kastay isugu tagaan hal xabadoo beriisa ma samayn karaan xabad gallaya ma samayn karaan xabad masagaa ma samayn karaan jurco yar kabasho yaroo caanaa ma samayn karaan yaa sameeyey ilaah baa sameeyey subxaanahu wa tacaala hadday arrintu ay tahay zaarica ama kan wax abuuraya ay arrintu isaga ay ku siman tahay waxay qiyaastu ahaan lahayd hal xabadoo beriisa markuu dhulka uu ku rido geed ka soo baxo inuu xabad ka qaato xabad gallaya dhulka ku riday hal xaba inay u soo baxdo haddiiba dee la siinayo wey xabad baa ka luntay soo maa xabad inuu qaato walaakiin halkan geed baa ka soo baxay weyn oo caleemale toddoba sabuul buu soo riday sabuul kaste 100 xaba ayaa saaran maalan yaa sameeyey allahu rabbulcaalamiin iga warran baan idhi maanta haddii allah jalla jalaaluhu uu yidhaa dhul yahow way kibreen kuwane wax damba ha soo saarin yaa ardu laa tunbitii bacda alyowmi shay-an maanta kadib waxbaba ha soo saarin maxay cunayaan lacagta ma cuni karaan ay haystaan intaasoo dhan wuxuu ku jawaabay sidaasoo kale isagana waan la hadlayaa moogtahay iyaaki acnii wasmaci yaa jaarata waa idinkana waan idiin jeeda lianna aayadahaas walaalayaal inaan ka fikirno weeye khaasatan carruurteenna inaan yaqiin ku tarbiyayno dukaan uun wax laga soo gadoo la cuno waa la yaqaanaaye marnaba u sheegtay ilmahaaga yar waxaan ilaahay baa sameeyey bani aadan ma samayn beriiskan aad cunayso ilaahay baa abuuray khaasatan dumarka haweenka waa inay carruurta ay ogeysiiyaan waxyaalahan baakadaha lagu soo goray caanahan baakadda sweden ma samayso waa inay u sheegaan denmark ma samayso allahu rabbulcaalamiinaa sameeyey laba maaddo oo labaduba ay najis tahay oo dhiig iyo uus waxa caloosha ku ururay labadaasaa ilaahay caanaha ka soo dhex saaraa siduu qur-aanka noogu sheegay jalla jalaaluhu bal waa kaa warshada adduunkao dhan isu geeyo oo labadaa isu geeyo caana ka soo dhex saara laa yumkinuhum abadan weligood ma samayn karaan abad alaabidiin marka in loo sheegoo la yidhaha baakadun bay qoladan ku soo shubeen fintijeer bay geliyeene ma sameeyaan oo yaqiin lagu tarbiyeeyo waa daruuri nacam in loo sheegoo la yidhaha dawlad baabuur way samaysaa diyaarad way samayn kartaa waxaa waa la samayn karaa farsamadaasoo dhan waana min taskhiir illahi ilahi baa u furay laakiin weligood neef adhiya ma samayn karaan neef geela ma samayn karaan xataa digaagad bayda ukun ma samayn karaan waa inaad carruurta u sheegtaa yaqiintaas oo laga dhaadhacsiiyo annaha kullaha min allah imaam ibn alqayim aljawsiya raximah اllah baa hadalqayim ah hadalkaas yidhi wuxuu yidhi addoonkuu shaakir noqon maayo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u mahadnaqi maayo ilaa 3 khisaal laga helo awalan wuxuu yidhi khaslada ugu horraysa waxaa weeye inuu qalbigiisa uu ku gonto nicmadan min allahi inay tahay walaysat min hayr illah waa kow tan labaad in an yataxaddaa biha daahiran inuu ku sheekeeyo
inuu ka sheekeeyo nicmada ilaahay oo carabkiisa uu ku muujiyo tan saddexaadna in uu meel mariyo oo uu ka dhigo nicmadaas uu ku meel mariyo ama uu mariyo meeshii khaaliqa muncimka ahaa ee siiyey uu raalli ka yahay saddexdaa markuu keeno maca taqsiirihi fa huwa shaakir buu tan lanaga doonayaana waa sidaas nicmo kastoo walaalayaal ilaahay uuna siiyey subxaanahu wa tacaala waa in saddexdaa khasla lanaga helaa awalan qalbigeenna waa inaan ku xusuusannaa oon ku gunadnaa annaha min allah war bani aadamow ilaahay baa ku abuuray awalan maadan jirin inteennaa meesha fadhida iyo inta adduunka joogta mid ilaahay arji u qortay oo yidhi ilaahay adduunkanaan doonayaa ee aan imaadda ma jiro meelaha sida hadda aad noo sheegtaan inta badan waxaad ku soo wada gasheen wax la yidhaha layn baad xidheen soo ma laynkaasaa maaragtay qaarna wuxuu la yidhi ku qarxadaa qaarna u soo baxaa halkana yimaadaa laynkii kuu soo xidhay ee telefoon iyo aad kala soo daashay weligaa iloobi maysid waxaad leedahay hebel miyaan iloobi karaa layn buuba ii soo xidhoo barwaaqada iyo jannadaasuu isoo dhex dhigay soo maha allahu rabbulcaalamiin adoon layn iska soo xidhin telefoonna iska soo hormarin waraaqna soo dirin adduunkan ku keenay jalla jalaaluhuna waad ilowsanta ya ugu mahadnaqi maysid oo laga yaabaa weligaaba adduunkan inaad ka tagto adoon ugu mahadnaqin nicmatuliijaad ilaahay ku keenay jalla jalaaluhu ixsaan iyo tafadul inaad adoon marna ugu mahadnaqin adduunkan inaad ka tagtaa dhici karta marka waa xusuus waa inaad qalbigaaga ku gunadaa annaha min allah jalla jalaaluhu waxaad cunayso fa minhu waxaad cabbaysa isaga xaggiisay ka yimaadeen dharkaad xidhanayso isaga xaggiisay ka yimaadeen meelahaas aasiya maraan maraynay waxaad arkaysaa marmarka qaarkiis madal basar indhahaagu intay ku dhammaadaan oo wada dhir suuf ah suufka geedkan suufka leela waa intay indhahaadu ay ku dhammaadaan wey dharkaad xidhanayso fa min allah waxaan kale oo laga soo saaro oo muntajaadkan batroolka leela ilaahay baa keenay jalla jalaaluhu subxaanahu wa tacaala